السلام عليكم buugga aan sheekada ka soo qaatay waxa la dhahaa magaciisa mashruuca la dagaalanka nuurka waxaana qoray Cabdiraxmaan waxaana laga qoray in ay inoo soo adeegsadeen qoladan heer galbeedka kuwada ugu xunxun ee waliba magaca gaarka leh haddaba ka hor intaan sheekada bilaabno aan faahfaahin ka siiyo ninkan ka hadli doono ninkan waxa soo adeegsaday qoladan heer galbeedka waxaana u soo adeegsadeen Soomaalida say u baraan dhaqanka bidix ee khaniisnimada iyo dhaqan kasta oo diintada masaxaya sheekadan waxa weeye qaybtii 24aad maaha qaybtii koowaad qaybi hore waan soo dhaafay waayo buuga ma dhameyn karno wuxuu yiraahdaa ku soo biray ururka laakiinse marka haysta shaashado badan yaani xidiga fara badan oo ka haysta qoladan shaqooyin fara badan qabtay subax ka mid ayaa wax la qabtay shir laga hadlayo sidee Soomaalida dhaqanka xun ugu sii xoojin karnaa oo u sii bari karnaa dibadna wuxuu dibadan u yar baxay anigoo karaahsanaya Soomaaliya aan ka dhashay in dhaqan xun la barayo nin taliya oo xidiga sare haysta ayaa iga soo daba kacay waxa uu igu yiri ummadan la dagaalamayna ma ummad cawaana waa ummad ahlu quraan waa ummad kitaabka quraanka haysata ummadii waxaan doonaynaa si aynu ku bar lahayn falowgeeda inaynu qabanno maadaama ka dhalatay adigu Soomaali waxa la doonayaa adiga ayaa noogu dhaweey in adigu dadkan dhaqanka aad u barto hore waxa la yiri ta dhamacyada yaqaan yaani kula jooga ee kula dhaqanka ee kula diinta ayaa garanaya meesha laga soo gali karayo ee aad ka jilicsan tahay waxaan hadalkii igu bilaabay quraanku waa ka dajiyay faraa'idka ama wax loo yaqaano dhaxalka wuxuu yiri dhaxalku agteeda uu ku dayacan yahay laakiin muslimka dhexdiisa aad iyo aad buu xurmeeyay oo qof kasta kaalintiisii ayaa uu siiyay wuxuu kale weydiiyay buuri aad ka hadlaysa qaabiliye habeen markay istireen deedna ay garanaysay ay soo aasaan ayadaas ma dhacday kaliya si waxba laga qaadanayaa oo cilmi baa laga baranayaa waxaan ugu jawaabay wallahi ma garanayo waan akhriyaa kaliya waxa uu igu jawaabay waxa laga qaadanayaa cilmi aad iyo aad u weyn in shimbiraha la darso waliba gargarka wuxuu yiri diyaarad ma aanan sameeynin hadan ayada aanan u fiirsan lahayn oo aanan eegi lahayn cilmina aanan ka qaadan lahayn wuxuu kale i weydiiyay Ibraahim Sakariya markay ay ka qoostaan dhasha iyagoo 9 jir dhaafay oo ay lahaayeen Ilaahay waanu dhali weyni markay dhasha ka qoosteen iyaga islaamahoodii waa ku Ilaahay dhashi siiyay Ilaahay ciyaalka siiyay uuna siiyay laba nabi ayadan waxa laga qaadanayaa dhacdo kaliya si waxba laga faa'iideeyaa waxaan ugu jawaabay yiri wallahi ma waan akhriyaa si hoosba uma fiirsan ayada wuxuu ugu jawaabay waxba laga qaadanayaa qofka muslimka inaanu ka quusan naxariista Ilaahay la taqnadu min rahmatillah ha ka quusanina naxariista Ilaahay wuxuu kala weydiiyay Yunus markuu xoodku laqay ama nibirigu ayada ka hadlaysa waxa laga qaadanayaa dhacdo kaliya ama shaqo kaliya si waxba laga faa'iideeyaa oo cilmi gaar ah laga faa'iideeyaa waxaan ugu jawaabay wallahi waan akhriyaa si garan maayo wuxuu ugu jawaabay sidoo kale waxa laga qaadanayaa naxariista Ilaahay inaan laga quusan Ilaahayna meel kasta joogtaba inuu ku og yahay uu kuna maqlayo kuna naxariisan kalayo si kasta ay ahaataba aan rajo dhigin oo aan naxariista Ilaahay ka quusan wuxuu yiri aad baan u yaabay waxaan isiri midda kan baa ka iimaan badan haddana waxaan ogaaday inuu kan gaal yahay laakiin anigu aan daciif ahay oo aan meel ba haysan wuxuu igu yiri dadkii haddaan quraanka barna waxaan ka baqaynaa in wax wada muslimaan laakiin waxaan ku mashquulnaa buugta dhiirigelinta iyo rajagelinta ila wad bilaadiinahe aad baan ku salaamayaa wassalaamu calaykum